mas-uuliyiinta gobolka Maroodijeex ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka warbixiyay kormeer ay maalintii shalay ku tageen beeraleyda deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Hargeysa. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Wali Cabdi Jaamac ayaa sheegay in beeraleyda ay xaaladooda u kurgaleen ay ka muuqatay darayo iyo sidoo kale daryeel la'aan. waxaan uu sheegay in beeraleyda beerahoodu ahaayeen kuwa qalalan oo biyo u baahan, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in beerta madaxweynaha oo ka mid ah beeraha ku yaala deegaanada ay kormeerka ku soo mareen ay ahaayeen kuwa ay u adeegayaan in ka badan 3 riig oo u gaar ahayd yada. waxaanu madaxweynaha ugu baaqay inuu cadaalad sameeyo dadka deegaanadaasi iyo beertiisa iyo beeraha kale. gudoomiye ku-xigeen Cabdiwali ayaa sidoo kale maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa ku eedeeyay inaanu ka warhayn xaaladda dadka deegaanadaasi ee baahida weyn u qabay helidda biyaha, balse waxa uu ku dhaliilay inuu ka shaqeeyo sidoo hadalkiisa u dhigay beerta madaxweynaha. anagoo gudanayna hawshayadii xisbi ahaan iyo gobol ahaan wadani xisbiga mucaaradka waxaanu anagoo ka jawaabayna qayladhaan ka soo yeedhay bulshada ku dhaqan hore hadlay ayaanu kormeer ku tagnay dadkii halka jooga cabanay runtii inaanu isaragnay iyo inaanu isaragnay way jiraan. intii aanu isaragnay waxay noo sheegeen waraysi ayaanu ka qaadnay runtii inkastoo naadee saxaafad ka haysan oo de Soomaalidu waxa tiraahdaa lafta jabi xaragadana ka tagin. waxaana noo isnidi haddii aad saxaafad ka haystaan oo meesha buuq la tagtaan waa laga faa'iideysan doonaa. markaasi hoos aanu u tagnay oo dadka u wareysanay oo u soo xoogaalsanay waxay noo sheegeen amba aanu indhahayaga ku aragnay maati daadsan, qaar barakacay, qaar ooman, beer iyaga warkood waa la iska daayo way qalaleen. halka beerta madaxweynuhu 2 riigna u dhamaadeen mid saddexaadna ku qotomo oo aanu mareynayo imaka qudradda timaada xisbiga in beerta wadaadku ay sabalay garayso. caruurtii iyo dumarkii halka joogay jilicda sanaana biyo la'aan bay u baqteeyaan. waanu soo aragnay taa dadku waxay noo sheegeen 3 sano inay barakac iyo balanbal u dhinaa aanay jirin oo qof waliba de wuxuu noo sheegay halkii laga raray waxaana ugu tagaynaa halkii loo raray. markaan halka ka tagnay hore hadlay haddana waxaan soo maray degmada leeyahay Dar es Salaam iyadana dad barakacayaal la dejiyay oo looga raray beerta madaxweynaha. dadka la raray waxa loo sheegay in Dar es Salaam laga dhigayo magaalo madax gobol, iyadoo taa loo sheegay bedelkeedii baa waxa lagu yiri waxaynu magaaleynaa magaalada la yiraahdo in Dar es Salaam baynu magaaleynaa si ay magaalo madax gobol u noqoto. markii laga rarayna taa bedelkeedii dhulkii laga raray waxa lagu daray beerta madaxweynaha. dadka cid u maqan oo Ilaahay ahayn ma jirto. loo soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii karaamiyo sharaf laga mudan maadaama madaxweyne qaranka yahay. madaxweyne ummadani kuumay dooranin, cadeeda kuumay taagnayn, kuugumay gaajoonayn, kuugumay soo jeedin, kuugumay mashxaradayn inaad adiguna beertaada 3 riig ku taagto iyaguna ubadkooda oo ay u baqtiyaan. xaasha lillah inaad kala xishootay ahayd. waxayse ku doorteen inaad naftooda iyo maalkooda iyo magacooda iyo masabkooda ilaaliso ayaa ahayd wixii ay ku doorteen. balse nasiib darro tii way ka waayeen oo waxaad ugu abaal guday inaad iska daa dadkooda Dar es Salaam jooga iyo hore hadlay ee aad xoolahooda xidhaaday beertaada galaan. xoolaha la xidhaa iska daa beer dad in la xidho xoolaha lagu xidhaa meesha haddaad sheegato baadi ka dhaxdo oo beerta madaxweynaha u dhacdo adoo diidayaba si aan laba badan haddaad marto aad sheegato neefkaagii beertaas ku jira inaad adiga lahayd oo si aan laba kaaga dib jiray waa lagu xidhayaa. marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa awalan ilaahayna ka cabso aakhira la tagayaa ummadana u xaqsoor dadkana haddii aadan waxba u qaban karin oo abaalkii ay ku galeen aad ugu guday inaad cunaha qabato. madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waxba ha u tarin
ummadda hadimadunka daa. ugu dambeyntii hadalka gudoomiye ku-xigeen weli ayaa ku soo beegmaya xilli ay cabashooyin ka soo yeedhayeen qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Maroodijeex gaar ahaan qaar ka mid ah beeraleyda dhaca waqooyiga magaalada Hargeysa وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال iyo sidoo kale Badre Muxyidiin wararka muqbahiya caalamiga ee Som News TV Hargeysa.